بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waad salaamantihiin meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada channelka ha ilaawina subscribe iyo like inta badan waxaa la kulantaa dad dhalinyaro ah oo timahooda ciro gashay waxayna qaarkooda kuu sheegayaan inay duruuf adag soo mareen ama walwal cadaadis ayaa u horseeday inay timahooda ka ciroobaan laakiin waxaa isweydiin mudan cadaadiska qofka la soo darsa ma keenaa ciro marka hore waa inaan fahanaa qaabka timahu u shaqeeyaan ama u koraan waxaad ogaataa maqaarka madaxa inay tahay warshada farsamaysa ama samaysa timaha waxaa shaqadan ku lug leh unug loo yaqaano melanasite oo ah maadada midabka timaha beddesha waxayna timaha dadka dhallinyarada ah ka dhigtaa bunni madow hurud caddaan ama gaduud hase yeeshee melanasaidka waxaa laga yaabaa in waxyeelo soo gaarto inta uu bini'aadamku cadaadis ku jiro xaaladahan waxaa loo yaqaanaa oxidative stress oo ah cadaadiska oksidka tani waxay noqon kartaa wakhti kooban oo haddii soo socda oo qofka gaaro dabayaaqada 20yada ilaa 30 jir waxaa daciifayo duleelka ukumada sidoo kale waxaa daciifaya jiin ama hidowga la dagaalamayay aashitada ama aksidka waxaa sababayo in kiimikada isku tagaan waxaana ka baxayo kiimikada la yidhaahdo hydrogen peroxide waxayna sababaysaa inay wiiqiso melanositis oona dilaysaa markaasna waxaa dhacaysaa in timaha midab la'aan noqdaan ama aan midabaysanin weliba way ka sii daraysaa dhibka oo waxay noqonaysaa timaha mid adag oo jabayo ama daadanayo waa sida ay tidhi Mary Seberg oo sheegtay in cadaadiska qofka ka yimaada ay saameyn ku yeeshaan in timuhu ka ciroobaan ama ka daataan waxayna habeenadan ka takhasustay cilmiga maqaarka daraasadahan waxay heleen inay isku xidhan yihiin niyad-jabka iyo cadaadiska oksidka ama oxidative stress laakiin waxaa laga wadaa muruga ama cadaadiska xad-dhaafka ah waxaa jira xaalado caafimaad oo ciro u keena timaha sida qofka nafaqa xumadu ku dhacdo ama dadka ku dhex nool hawada wasakhaysan ama dadka leh caadooyinka xun sida dadka sigaarka caba oo kale waa mahadsantihiin daawadayaal ha ilaawina subscribe iyo like